wixii ciidan ahaa waxaan ka uga baaqayaa inaan dawladdu ay cafis u fidiso oo jenaraal Jimcaale u weyn yahay waxaan kaloo halka baaq uga darayaa nimanka siyaasiyiinta dawladda hadda ka aragti duwan inay miiska nala soo fariistaano wixii sharci ah iyo caqligana diyaar baa inaan kala hadalno dadka iyo dalku waa naga dhaxeeya ra'yiga waa ku kala duwanaan karnaa laakiin dad isxabadayn kara ma nihin wixii ra'yi duwan waxaan rabnaa inaad idinkiina halka fadhiya oo cuqaasha iyo waxgaradka isugu jiro inaad noo garnaqdaan oo haddaan gar daran lahayna tiraahdaa war dawladda waa gar darantiina maanta jooga haddaan gar leennahayna garteenna na siisaan haddii la gartamo gari laba nin kama wada qoslisaa la yidhi hadda cid baa horta garta qaadanaysa haddii gartana laga qaato annagu hanii'an baan odhanaynaa laakiin haddaan gar leennahay walaalahan waxaan ka rajaynaynaa inay garteenna noo oggolaadaan waxaan saa u leeyahay waxaan matalaynaa annaga bulshada mas-uuliyaddii dadkaan haynaa sharci iyo xeer baa noolagu dhiibay dareenkooda maalin walba hadlaayaan fahmaynaa waxa aan rabno ma aha shakhsi iyo xukuumad waxaan u rabno waxaan rabnaa waxa bulshaduna doonayso dalkana sharcigiisa iyo qawaaniintiisa ku dhigan waxaan kaloo inii sheegayaa fursadda maanta puntland haysato waa fursad naadira oo ilaahay aan ugu xamdinaqayno waxaan haysanaa nicmo waxaan haysanaa amniga kala dambayn waxaan haysanaa dad aad u fiican oo dalkooda iyo dadkooda jecel waxaan haysanaa dad aan lagu gardaroon karin oo haddii lagu gardaroodo dadkooda iska dhiciya waxaan haysanaa dad isu dulqaata oo haddii dhib dhexdooda dhaco xallista arrimahooda hoose maanta puntland meesha ay joogto geedigaas haddee wasiirkiina waa joogaa geedi caana lu yidhi caana yaskaxna waa joognaa waxaan u malaynayaa caanihi marka caanihii in la dhami waayo oo carcabba la yidhaahdo horta halkaa kuma jirto marka waxaa odhan lahaa eedda nugaal ma leh dadkeedana ma leh maalin kasta saasay u qaylinayeen laakiin haddana duruufaa jiro u baahan tixgelin intiina halka joogta inta maqan waxaan ka codsanayaa arrintaa in loo istaago waa arrin aan wada leennahay waa arrin wiilkiisa anfici doonta waa arrin jiritaankeenna wax tari doonta waa arrin noo horseedi doonta inaan kala dambayn iyo dawladnimo qurux badan aan aadno waxa aan raadinayno waa wixii noola igmaday waxaan aaminsannahay ayna tahay awooddii dawladda maanta ay ku fulin lahayd inay doorasho qabato iyadoo shuruucda iyo xeerarka dalka raacaysa diyaar bay u tahay wayna kari kartaa cid kasta oo ummaddan rabta in ay mas-uul u noqoto laga soo bilaabo golo degaan golo baarlamaan iyo madaxweyne ku-xigeen waxaa la yidhi war dadkeennu hana kala saaro hala doorto in hal la yeesho oo damac la yeesho oo la tartamo ceeb maaha degmooyinkii hadda la qabtay waxaa tartamay wax 4,000 ku dhow 700 iyo xoogaadaa ku guulaystay ma cid qaylinayso qori qaadataa aragteen waad u jeedaan qofku haddii xalaal looga guulaysto inuu yidhaahdo hadda xalaal caleeg soo saa maaha in loo daayo qofkii guulaystay markii laakiin xaq iyo xeer iyo sharci uu yahay waxa aan raadinayno waa wadajirkeenna waa horumarkeenna haani bumbay ka tolontaa baa la yidhi dawladda puntland waxaa bari iyo saldhig u ah garowe waa caasimaddii dalka waa meeshii lagu yagleelay puntland marka la leeyahay hooyada federaalku ay nahay hooyadu haddee cid kasta hooyo ma noqon kartee garowa ah hooyadii shalay waa halka dastuurka maanta soomaaliya ay haysato lagu aasaasay oo halka lagu sameeyey dad wax waa istusi karaan aragti waa qalloocan kartaa laakiin caanadaati dabadoodaa la qabtaa la yidhiye waraan isdaba qabanno wixii dhacay waa dhaceen cafiya masaabaxa laga noqdo dalku gadaal buu u badan yahay dadnimadu gadaal bay jirtaa sharaftu gadaal bay jirtaa qof madaxa iyo qof weyn iyo qof yarba soo halka maanta gacanta bariiska wadan gelin laba kala weyna labana kala sarreeyo dad ehelaynu nahay danaheenaan ka shaqaysanaynaa dalkaas baaxadda weyn ee puntland ma waxay la tahay madaxweyne keliya inuu ka shaqeeyo ummaddaasoo dhan baa ka shaqaysa nin walba meeshuu waxaad maqli jirteen ninba salaanta meeshuu leeyahay ka qaata soo maaha
ninba dowladnimada meeshu leeyahay kaga aado dowladdu waa ballaaran tahay nin walba meeshiisa ku filan mas'uuliyadiisa inuu qaado runtii aniga waxay ii tahay farxad waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo inaan ilaahay gacanta u taagno ilaahay inuu nabadgelyo na siiyo ilaahay inuu fidnada naga yareeyo ilaahay inuu raxmadda noo siyaadiyo ilaahu wax dhigaalkeeda inuu naga duwo ilaahu ummadeenna quluubtooda inuu isku soo duwo ilaahu dalkiisa horumarkiisa inaan ka wada shaqayno